labaad toddobadeedii maalinimo axada waxaan ku sugannahay caasimadda Soomaaliland Hargeysa gaar ahaan xaafadda Masallaha gaar ahaan Central Cabdiraxmaan isla goobtan maanta 16 caruur oo aragga naafo ka ah sida baska imka idin muuqda ay saaran yihiin ayaa nagula sugan waxaa loo samayn doonaa jeegarayn dhinaca indhaha ah oo bilaash ah sidoo kale daawooyinkana bilaash ay ku heli doonaan hawshan maanta haddaanu nahay ururka hablaha aragga naafada ka ee Tafbalaan Girls waxaan nagu gacan siisay mu'asasada khayriga ee Al-Nuur Charity ee aan marnaba hilmaami doonin hawshaasi ayaan maanta fulin doonaa haddii Rabbi raali ku noqdo muuqaalada dambana way wada socon doonaa insha Allah magacaygu waa Xamdi Cabdi Sogsog waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka ururka hablaha aragga naafada ka ah ee Tafbalaan Girls maanta ay taariikhdu tahay 2021 bishii 2 toddobadeedii waxaan ku sugannahay caasimadda Soomaaliland Hargeysa gaar ahaan xaafadda Masallaha gaar ahaan Central Cabdiraxmaan waxa halkan nagula sugan 16 caruur oo aragga naafada ka ah 16 caruur oo loo sameeyay maasha Allah jeegarayn dhinaca indhaha oo bilaash ah iyo dawooyinka bilaash ah hawshan caafimaad ee gargaarkan caafimaad haddaanu nahay ururka hablaha aragga naafada ka ah waxaa naga gacan siiyey mu'asasada khayriga Al-Nuur Charity ee aan la'aanteed waxyaabo badan loo qabsoomeen mar iyo 2 iyo 3 toban aan barbar istaagin laakiin si ah mu'asasada si gaar ah isugu xidhannahay waxaan aad ugu mahadcelinayaa mas'uuliyiinta sare ee mu'asasadaasi maama Ifraax Maxamed iyo Adeer Cabdirasaaq aad mahadsantiin baan leeyahay sidoo kale waxaan halkan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Dr. Mukhtaar oo noo soo galay masaafo dheer oo inooga yimid Boorama waxaan leeyahay hawshaas aad maanta qabatay ilaahay miisaanka xisanaadka ha kuugu daro sababtoo ah tabantaabadii 2 gacmood tamar ku yeeshaa haddii qof walba aanu dhankiisa isku xilqaamay wuxuu ma hagaagayaan marka mu'asasada khayriga iyo dadka aad baan ugu mahadcelinayaa ururka hablaha aragga naafada ka ah ee Tafbalaan Girls wuxuu mar walba u taagan yahay taakuleynta iyo tabantaabinta haweenka iyo carruurta aragga naafada ka ah meel kasta ay joogaan haweenka iyo carruurta afka Soomaaliyeed ku hadla ilaa shalay ilaa dooraad waxaan ku guda jirnay sidii aan ugu wargelin lahayn waalidiinta subaxnimada axada ee bishu tahay 7 inay soo diyaariyaan carruurtaas alxamdulillah hawshaas way noo qabsoontay waana ku guuleysanay mar walba aniga iyo tiimkayga waxaan u taagannahay sidii aan u caawin lahayn haweenka iyo carruurta aragga naafada ka meel kasta ay joogaan Charity Foundation anigoo ah maamulaha ururka Cabdirasaaq Suleymaan Yuusuf waa idin wada salaamaya dhammaantiin carruurta halkan maanta noogu timi waalidiinta la socotaba waxaan kaloo salaamaad iyo aad qaali aan ugu mahadcelinayaa waa Beri Eye Clinic Dr. Mukhtaar specialist indhaha noo soo galay masaafo aad u dheer Boorama nooga yimid waa jirtaa dalabo fara badan oo aan gudbinay
وكبرية كلمة الصغيرة يراهو ururku maadintaasuu buu maanta isagu uu ku kooban yahay hadalkiisu dr mukhtaar ku soo dhowow kelmate. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan aad ugu mahadnaqayaa cabdirasaaq saleebaan oo ah horyaalka ururka anuur urur samafaleed oo runtii hawl qaaliya noo haya horta halkan aan ku arkayo wixii insha allah aan ku qaban karno iyo wixii tala ah inta badan siin doonaa waxaan haynaa dawooyinkii iyo kale talabkii wixii aan isticmaal u baahan kartaan saacadan wixii kale isleedahay meel kale insha allah wax loogu qaban karaa ama qaliib u baahdana insha allah qaybteeda idinka fulino diyaar baa marlaba waxaan leeyahay ilaahay wuxuu subxaana watacaala yani isku caawiya watacaawanu cala albiri waltaqwa yani isku caawiya wadaag samafalka. bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaa mahadal kusugan ilaahay isku keenay halkan oo alluur charity hawsha laga wado waa hawl aada u muhiima oo ubadka xanuunsanaya xanuunada kala qaba walaha jirka meel kastaba in loo gudwado ama dowlad hoose ha ahaato ama dowlad dhexe ha ahaato oo gacan xoogan siiyo hawshani sida sheegaan habluhu way ku badan ku culusta iyaga in laga gacan siiyo dhinac kastaba hadday noqoto xagga qalabeynta hadday noqoto xagga dhaqaalaha caafimaadka kale wax oo dhan waxaana mahad iskale ilaahay isku keenay waxaana muhiima dowladda hoose degmada hargeysa inay iyada lafteeda qayb ka qaadato oo aanay ku hadlayn alluur charity oo ay noqoto qayb ka mid ah alluur charity kuwii caawinaya hay-adahana ay ku soo xidhaan hay-ado badan baa ku xidhan dowladda hoose oo ku shuqula xagga caafimaadka iyo wax kastaba anigu cabdirasaaq injineer cabdirasaaq ahaan hore waxaan uga qayb qaatay caruur la caawinayay oo dhakhtarna hargeysa ka dhisaan islahayn special needska oo dhan ah laakiin waqti bay kaga qaadanaysaa halkanna qayb inaan ka qaato ayaa aan doonaya insha allah inta mustaqbalka wixii kastana de xag ilaahay bay ku xidhan yihiin oo ilaahay hadduu inala qabto waynu buuxin karnaa qayb kasta oo baahida dadkeena ah waxaan ahay nin injineera oo maraykan ka soo shaqeeyey sacuudi ka soo shaqeeyey haddana sidii waxbaad u qaban kartaa ummadaada oo qayb ka noqonaya haddii ilaahay u leeyay inaan degmada hargeysa u cararo musharax oo meeyar ahaanna ku hanweyn marka in dhinac kastaba dadkeena aynu eegno ayaa muhiima oo aan la eegin inta wax haysata laakiin inta kale u baahan la garab istaago anna waxaa iga ballana oo haddii ilaahay la qabto inaan qayb ka ahaado. السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مبعي بدي إسلام إسلام عبدي ويا الروح إنها كنا عبارة ورثة وحنا كنا ومحل نقرية إلهي ومحل نقرية مرحبا وحنا ومحل نقرية والدك وبركايا لنا فرعة محل المسؤولين محلها عرضنا فرعة يقول كوبا إلهي كسوك وعما هنقيبه iyo marka ay soo qabteen waa naqayeen kana afwan lagu arkay inuu sheegareeyay intii dawladda waa la sameeyay intii muraadnahayd waa loo diray intii qalinahayd waa loo sheegay marka ilaahay ma hada ka gaadho Allah uu ka naafada ah insha Allah iyo
أدعو من سنتين قدومي كحيانك أوربكو warbixinta intii badnaydna siisay subxaan ilaahi subxaana watacaala baa marka koowaad marka labaadna waxaan mahad celinayaa muasasada khayriga ee alnuur charity sidoo kale waxaan mahad celinayaa doctoorka dhammaantiin ilaahay miisaanka xasanaadka haydin ku daro hawshaa khayriga ee maanta naga gacan siiseen hadalka inta dambe waxaa tiri gudoomiye ku-xigeenka keliya anigu waxaan marka la istaagay inaan mid keliyata ilaahdo amaan baa ku diro dhammaan gobolka somaliland iyo ummadda soomaaliyeed dowladda hadday tahay dowlad hadday tahay ganacsato hadday tahay shacab runtii annagu haddaan nahay halkaa argaysakaan mustaqbalan gaaralisana c b g hawshan aan haynaa waa hawl naga baaxad weyn runtii anagoo la arganaafaka anagoo ah haddana waxaan go-aansanay oonu isu taagnay inaanu mar kastaba dumarka iyo carruurta arganaafada ka ah aan wax la qabano waxaan ka codsanaynaa dowlad ahaan iyo shacab ahaanba inay nagu gacan siiyaan hawshan ballaaran aynu hayno sida muasasada khayriga ee alnuur charity foundation aad baan ugu mahad celinaya muasasada mar labaad iyo mar saddexaad maamay fraax iyo weliba adeer cabdirasaaq waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka haydin ku daro sideed ugu garab taagantihiin markasnaba ma ilaab doonaa abadan baladeeda